nabi maxamed in laga sheekeeyaa xun maaragtay aabbahay in laga sheekeeyana waa xalaal ha dhagaysan xafladda maaragtay tan jaamacadda iyo tan madrasada in laga sheekeeyaa xalaala tii nabi maxamed siiradiisa ku saabsaneedna waa xaraam wax la dhagaysta ma dhamo markaan qiimayn sameeyo waxaan dhihi lahaa qofka ka hadlaya nabi maxamed ka hadalkiisa iyo taariikhdiisa iyo siiradiisa dadka barideeda qofka inkirsane ma dhamaba qofkaasi in lala niqaasho ma dhamo qofkaasi waa qof dhinta wey qof kasta yaanu barwaaqadaanay ka qadin qof yiri ama dhahayaa ma jiro nabi maxamed bisha rabiicul awwal kaliya lala sugo ka sheekaysigiisa bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu isma qal aragti wanaagsan daawadayaal halkani waa warbaahinno dhowr ah oo arrimaha diinta ka shaqeeya haddii alla uu qadaro waxaan halkan idinkugu soo gudbinaynaa waraysi gaar ah oo aanu la yeelanayno cilmi badanaha weyn ee usuuliga ah ee Sheekh Muuse Macalin Xasan Caynte su'aalo dhowra iyo arrimo dhowra ayaanu ku faaqidi doonaa waraysigan haddii eebbaha awoodda leh oo raali ka noqdo waxyaabaha waraysigan aanu ku qaadaa dhigi doono waxaa ka mid ah xukunka ixtifaalka mawlidka nebiga calayhi salaatu wassalaam maadaama lagu guda jiro bishii barakaysneed ee mawlidka haddii alla uu qadaro aadaabta ixtifaalka iyo sida ugu waafaqsan ama sida ugu wanaagsan oo shariicada islaamku ay markaasi ku dhisan tahay ee mawlidka loo dhigo shubhaadka ku soo aroora mawlidka qaar ka mid ah ayuu sheekhu halkan ka xallin doonaa haddii eebbaha awoodda leh oo raali ka noqdo waxyaabo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa haddii alla uu qadaro iyo tooshka aanu ku qaban doono qaar ka mid dadka diida mawlidka oo qudhooda dhiga xaflada nebiga aan ogeyn sida mu'tamaraad iyo xaflada qalinjabina iyo waxyaabo kale haddii alla uu qadaro waxaan u mahadcelinayaa xagga kaamirada injineerada waaweyn ee Cabdullaahi Sheekh Xasan Khalaf iyo waliba Maxamed Xasan Cilmi oo waraysigan xagga kaamirada ka qaabeynaya Sheekh Muuse waan ku faraxsanahay in mar labaad aanu waraysi isugu nimaadno bal ugu horreyn inagoo mawlidka isugu hambalyeynayna marka xigta waxaan aad uga xumahay in dadka qaar ay dhibsanayaan in laga hadlo ama adilo loo raadiyo mawlidka laakiin dan ayaa keentay wax laga yaabaa dad badan in lagu maran habaabiyo arintan oo hadii si cilmiyeysan loola hadli lahaa laga yaabo inay diinta fahmi lahaayeen bal sheekh horta ugu horreyn xukunka ixtifaalka mawlidka muxuu yahay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد أحبابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ عوك iyo maarata asxaabtiisa aad baan ugu faraxsanahay runtii in aan inaga oo ka mudaakaroonayna mowduuca aad u muhiimka ah ee nabigeena calayhi salaatu wasalaam ku saabsan maadaama mowduuca uu nabi maxamed ku saabsan yahay waa mowduuc aan mowduuc lala simayahay ama maanta inooga muhiimsanay aanu jiri karin waayo maarata waa aslu diinina waxaan ka sheekaysanayno sidaa darteed aad baan ugu faraxsanahay maarata liqahan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynayaa wax ummadda dawo u noqda inuu ilaahayna waafajiyo tabaaraka wa tacaala haddii aan u soo noqdo su-aashaadii jawaabteeda xukunka nabiga calayhi salaatu wasalaam ixtifaalkiisa iyo dabaaldega nabiga calayhi salaatu wasalaam ixtifaal oo macnihiisu uu yahay u dabaaldegid in nabiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisa ama jiritaankiisii ama loo dabaaldegaay waa arrin diini ah oo aad maaragtay muhim u ah sidaa darteed ayaa haddii ha laga hadlo la yidhaah ka hadalkiisu aanu maalin iyo laba iyo saddex iyo sanad iyo laba sano midna aanu ku dhammaanaynin waa un in maaragtay in qadar gabana la isxasuusiyo mooyaane marka xukunka nabiga calayhi salaatu wasalaam in maaragtay ixtifaalkiisa la isugu yimaadaahe min sunani diinina weeye waayo nabigaaba yidhi sala allahu calayh wasalam man sanna fi lislaami sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man camila biha qofkii maaragtay islaamka dhexdiisa ku jideeya wax wanaagsan
wax ka wanaagsan in nabi maxamed laga sheekaysto oo la kala barto oo maaragtay la isugu tahniyeeyo oo quluubteena la xasuusiyo oo dhaqankiisii nala xasuusiyo si aan markaa mutaabaca aan u helno wax ka muhiimsan ma jiraan qofkii marka taas waxa ay ka dhalanayso ummadda u jideeya qaab ay arintaa ku kala qaadan karaan dadka baraay wuxuu maaragtay sunnada xasanada isaguna wuxuu leeyahay intuu qabtay waliba inta ka faa'iido oo markaasi arintaasi ku daba kacda intay helaan oo kalena sheer buu leeyahay uu helayaa marka sidaa darteed waa sunno diineed waa waliba sunanta maantay dadkii dhexdooda inay ku sii dhimato halis u ah nabiguna wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani waman ahabbani kana ma'iya fil janna qofkii sunnatayda ay sii dhimanaysay soo nooleeya oo badbaadiya dadka xasuusiya yaa ana u jeceliya qofka aniga ay jecelna jannado ayuu rafiiq igu noqonayaa oo ila jiraya aad iyo aad ma santa sheekh inagu ka duulina arintaas dad badan baa laga yaabaa inay dad badan oo diidan waliba ihtifaalkan waxay ku andacoonayaan in markaas mas'ala leeyahay tarki oo ay leeyihiin nabigu ma sameyn Abu Bakar iyo Umar ma sameynin saxaabada iyaga nooga jecel badnaa iyagu ma sameynin bal mas'aladaas inkastoo aad looga hadlay laakiin maxaa si kooban u dheelayd ma sha Allah horta waa shubhada ugu maaragtay weyn oo shubahaadka ay keenaan oo dadka maaragtay ay aad iyo aad ugu dad badane ay wadada uga lumiyeen waxaan horta marka hore idin sheegayaa oo cid walba ay ogtahay waxaan nabiguna sameyn Abu Bakarna sameyn Umarna sameyn Uthmanna sameyn wala hatta ahad min ashaabi rasuulillaah Muhammad sallallahu alayhi wasallam aanu sameyn ya daraar walba lagu dhaqmaa oo mujmacun calayhi ah oo masaajidena dhaxdeeda mamluu'a ka masaaxifta halka saaran maanta inagu masaajidan joognaa masaaxiftaasi waqtiga nabiga calayhi salaatu wasalaam quraanka wala qoriyay oo inkastoo uunan jamcisnayn wala qori jira laakiin xaraf dhibac lagu dhigaay ma jirin ba iyo ta iyo tha isku si loo qoriyay dadkan malaka ilaahay uu siiyay bay ku kala saarayeen dhibac ma ilahayn shadda ma aysan lahayn kordhig iyo hoos dhig iyo god midna ma ayna lahayn Umar baan nabiga iska daaya Umar Uthman Abu Bakar aan ogeyn Umar aan ogeyn Uthman aan ogeyn waaxid min asxaabana ma ogeyn asxaabtii nabiga markay ka intiqaaleen kulluhum min ad-dunya ka dambe Yahya ibn Ya'mar iyo raggi taabiciinta ayaa soo bilaabeen maanta hadii la yiraahdo baadaytada in la dhibcaya nabigu ma ogeyn maaragtay ha isku yaacada hadii la yiraahdo ma aqli bay noqonaysaa mise diin bay noqonaysaa arintaasi marka hadaan maanta yiraahdo aan ka hadalno waxay noqonaysaa in maaragtay awqaar badan ama maaragtay maxana intaasoo tan oo kutuba laga qori lahaa inta nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoon ogeyn ka dambe adduunka ku soo biiray diintuna ay aqbashay mawlidkuna taasuu ka mid yahay marka masalada tarkiga iyadu maxay faa'iideysaa tarkiga at-tarku la ya'ni at-tahrim ka tegida uu nabigu ka tegay ma keenayso xarimitaan haday xarimid keenayso arimahaasi ayay dadkii taabiciinta iyagoo jooga oo ijmaac ku guntanmay aan hadda ka hadlayno in baadana hoos dhibic looga dhigo taadana laba korka looga dhigo taadana korka saddex looga dhigo taabiciintii bilaaba waana lagu ijmaaca ilaa haddana qof ka hadlay ma jiro waa xaraam yiri ma jiro marka haduu tarkigu tahriim keena taas uu xarimi lahaa waayahay dhinac kale waxa jirta arrinaa soo hadal qaaday dadka diidan oo ihtifaalka mawlidka doodo badan keena waxa laga yaabaa amaba jirtaba inay qabtaan mu'tamaraad waaweyn inay qabtaan xafalaad badan oo ama aday aan lahayd midaan oo qalin jabinta oo kale iyo xaflado noocaas oo kale ah maxay kula tahay xafladan diiditaanka ay diidayaan iyo midaan ogolaashaha markaas ay ogolaan maxaad ku macnayn lahayd wallahi waxay ila tahay sheekh ama ay tahayba xaqiiqatan way ila tahay ma aha wayba tahayba taas ana jecel sidaas xalaal waaye tan ana anigu jeclayna xaraam waaye taa uma ila tahay wax kale oo aan ku macnayn kara ma jirto waayo dhara nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam meel arda qalin jabinaysa xaflada loogu dhigo uu yiri ma jirto nabigu taa ma sameynayna tan waxaad uga hadli laadahay ee tan aad kula dhagantaa tan adaan ogoleyn taasna adaa ogol inta un baan ku macnayn karnaa taasina diin ma noqonayso marka maxay tahay miraha laga dhaxli karo xaflaadkan dhacaya ثمراتك أما مراه لجهليو محي شيخ ووحنا لك سو كوبي كرن شيخ حسن دي أنا أرنتاسي رنتي
sida ay tahay maanta fawaa'idda mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo xafalaadkaasi fawaa'idda ay leeyihiin ha laga hadla haddii la yidhahdo hala hebeliyo xayaatadeenaa ku dhammaanaysa iyadoo qabyo ah. waxaan ka taaban karnaa aan ka soo qaadi karnaa tarbiyat alawlaad. waxaan awlaadeenna iyo dadka maaragtay ehelkeena ay ka qaadanayaan xafalaadkaasi taariikhda nabiga u dhashay bay yaqaanaan sala allahu calayh wasalam. bishii maaragtay nabiga la dhalay bay yaqaanaan, siiradii nabigay baranayaan, magacyadiisay baranayaan, muugtiisay baranayaan oo looga sheekaynaya. waxaa looga sheekaynaa itibaaciisay baranayaan, siiradiisay baranayaan. waa culuum maaragtay shareecada islaamka qiimo weyn ay u yeeshay oo dadku ay qabatimaan, weliba ay sanad walba ku talagalaan inay markaasi ay waqtiyadaasi haddana ay soo tajdiidiyaan. ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa ambiyadiisa wuxuu amray qaybo ka mida sida nabi muuse calayhi salaatu wasalaam wadakirhum biayaami illaah, dadka qoomkaada ku waaniyaa la yidhi taariikhaha uga sheekay. taariikhdii nebi maxamed oo afdalu tawaariikh oon ka sheekaysano maaragtay oo amarkaasi la qaadanayo ayaa ku sugan. faa'iidooyinku marka wax koobnaan kara ma ahan. aadaabta ixtifaalka iyo qaabka ugu fiican ee shareecada waafaqsan oo xafladahan loo dhigi karo maxay yihiin? marka waxaan rabaa inay ku socoto dadka ogol ixtifaalka mawlidka, ayaan rabaa inay cashar u noqoto sida ugu wanaagsan ee aadaabta ugu wanaagsan shareecadana ugu waafaqitaan badan ee aad jeclaan lahayd inaad hawada u mariso maxay noqon karaan? jazaaka allah khayr. waxa weeye dadka muslimiinta waxaa la gudboon maadaama ay samaynayaan wax ka hadal nabi maxamed sal allahu alay wasalam laga hadlo, siiradiisii laga hadlo, khaliqiyadii iyo khuluqiyadii, in ay iska ilaaliyaan wax mukhaalafatu sharci illaahi tacaala ah. waxaan ku soo koobaynaa aadaabiyaadka ahamuhaa waxa weeye inaad shareecada islaamka aad maaragtay madaarkaada aad maaragtay aadan dhaafin oo markaasi aad fareemkaasi ku dhex jirtaa. diinta islaamku waxay ogoshahay oo keliya halkaasi laga ilaaliyo. wuxuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam haddii uu joogo aanu ku aamusi lahayn inayna meeshaa ka dhicin. intaas ayaan maaragtay insha allahu tacala wuxuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam raalli gelin lahayna in maaragtay waxa laga hadlaya ay ku koobnaadaan. maasha allah, waa jawaab aad u kooban aadna u nafci badan. dadka qaar laga yaabaa sheekh inay gaalaysiiyaan iyadoo si guudba dadka muslimiinta qaarkood loo gaalaysiiyo, haddana waxaad moodaa in ixtifaalkan mawliidka dhigitaanka dartiis dad badan ay ku gaalnimo xugminayaan dadka ixtifaalka dhigaya. si kooban dadkaas maxaad dhihi lahayd? waxaan dhihi lahayn walaalayaal, ilaahay ka yaaba, idinku maaragtay haddiin beelina, waayo khatarta meeshaa ku jirtaa waxay tahay qof muslim ah qofku haddii uu yaa kaafir yidhaahdo, qofkaasi hadduuba muslim yahay asagaa kaafir noqonaya. marka inaad adugu intaad maaragtay madfac riddo oo madfacaasi markaa baalkii qora saban ah ama biitaam ah inaad inta xabadkaada ku soo aadiso aad waa ridaa tiraahid, adigu aad isdiso waxaad dili lahayd intaadan dilin. arrintaasi ayay kuu sababaysaa. waxaad gaalaysiinaysa intayna gaaloobin adaa gaaloobaysa. sidaa la ajligeed arrin dadka muslimiinta naseexa unbaa u dhaxaysa. qof muslima nasaa'ixdana ka mid ma ahan, gaalaa tahay, mana ahan usluub wanaagsan. akhlaaqdii maaragtay nabigana ma ahan. nabigu kufaartuu la hadlayona xataa gaalaa tahay weli mid uu yidhi ma hayno. isagoo abijahal iyo abilahab ay ka soo horjeedeen oo la macaamilaya haddana gaala yahay xun tahay iyo gaalaa tahay. nabigu calayhi salaatu wasalaam tacaamulkiisii ma ahan. marka qof muslima inaad ku dhiirato waa adiga oo naftaada halaajiyo un. waaya dadka qaar waxaa laga yaabaa inay qabaan in ama ay dood ka keenaanba in la waqtiyeeyo xafladaha mawliidka oo waxay leeyihiin maxaa rabiicul awal keliya loogu dabaaldegayaa oo maalmaha kale looga tegayaa? ilaa nebigu xaq u leeyahay in sanad kasta, maalin kasta, waqti kasta, ilbiriqs kastaba la weyneeyo. maxaad arrintaas uga jawaabaysaa? waxaan leenahay horta waxay duruuftu maaragtay kugu xeerto ama kugu kalifto oo kugu qasabto, qofku bani aadmiga ah awood darridiisa ayay ku dhaafaysaa. laakiin qof yiri ama dhahayaa ma jiro nebi maxamed bisha rabiicul awal keliya ha lala sugo ka sheekaysigiisa. haddii aad 24 saac aad nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka sheekayn kartahay waa xaq, waana maqbuul, waana muhim. haddii ay awooddaadu gaari kari weyso mararka qaar ka sheekay,
haddaad ka badin karta ka badi oo maaragtay maalintiiba saacad ka mida ka sheekay usbuuci maalin ka mida ka sheekay bishii maalin ka mida ka sheekay waxa aad kari karta wey laakiin cid tiri waqti kale lagama sheekayn karo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee waqtigaas ku xadidan yaa tiri ma jirto cala tamaam xataa way jiraan culimo qaar oo xaflad isbuuclayaal ah iyo bilayaal ah ama si joogto ah way jiraan in badan oo ka mida maaragtay culimada islaamka ayaa intaasoo kun oo jeer nabiga ku saliyaan leylan wa nahaaran oo aan maaragtay sheegin oo habeenkii ku seexdo kuna soo toosa maaragtay usbuuc kastana hanti badan ku bixiya bishina hanti badan ku bixiya sanadkana hanti ka sii badan ku bixiya marka qof walbaahiba waa intii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka karsiiyo iyo waafajinta ilaahay wuxuu alla kaa waafajiyo cid ku xadidaysa ma jirta awooddaadii ku ceelin oo intaad nabigaada calayhi salaatu wasalaam aad la xiriiri karta la xiriir ugu dambayntii maxaad soo jeedin lahayd maxaad waraysigan inoogu soo gabagabayn lahayd baaraka allahu fiikum waxaan leeyahay walaalayaal inagu waxaan nahay ummad muslimiin ah oo aan sida la ogyahay waqtiyadan dambe unba markii adduunkaasi lagu baahay oo dhibaato inaga dhexdeena ka jirta darteed ay dadkii badaha ka tallaabeen unbaa dadka wax soo yara kala dhex galeen intii ka horeyday waan ishubnayo boqolkiiba boqol ay maaragtay dadkeenu muslimiin ahaayeen islaamku heerkaasuu naga joogay waa dhacaysay dhaliilo maaragtay qofku isagoo muslim ah marka uu wax khaldo qof muslima wax ma khaldi karana ma la dhahayo min saxaabati nabiy sallallahu alayhi wasallam wa fi ahdihim ayaa waxa dhacayay waxyaaba khaladaad oo gafafa ay dhacayeen gafkuna ama cuquubo yeelanayo qofka waa la ciqaabay tacsiiro mararka qaar yeelana waa la tacsiirinay mararka qaarna intaasba waxaan gaarsanayn buu aayo maaragtay ay ku filan tahay ilaahu toobo marka waxaan leeyahay walaalayaal horta dadka muslimiinta waqtigeenan joogaani mawsimkaani islaamiga ah oo qiimaha badan maaragtay ha ka qayb galeeno qof kasta yaanu barwaaqadaani ka qadin waa qof dhaxalka aabiis ku qaday qofkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waqtigaani xasuusashada iyo ka taariikhayntiisa aan isaguna kii ka hadlaaya noqon kii looga hadlaaya ee markaa laga waraabinayana aan noqon waxa weeye qof maaragtay nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista maaragtay walow maqaal uu jiro waxaa jira xadiis dhahaya kun caaliman aw mutacalliman walaa takun haalian caalim noqon kii wax baranaya ama kii wax dadka barayay noqon mid saddexaad ha noqon waxaan dhihi lahaa dadka waqtigeenan jooga dadkii maaragtay ka hadlaya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo siiradiisa naqda ama kuwii lagala hadlayo oo dhagaysanaya naqda labadaa wax ka baxsan ha naqana saasaan ku talin lahaa taladeedu oo kooban insha allahu tacaala waxa la idiin sheegaya waxaan ku darayaan raacinayaa waxa la idiin sheegayaa kulligood ha wada qaadana dhagaysta qofka mu'minka ah sifaadkiisa waxaa ka mid ah yastamicuuna alqawl fayattabicuuna axsanahu warka la dhahayo way dhagaystaan laakiin inta fiicanay ka qaataan yaa maaragtay qofkaan muslimka salaada dukanaa gaala ha dhagaysan nabi maxamed in laga sheekeeyaa xun maaragtay aabbahay in laga sheekeeyana waa xalaal ha dhagaysan xafladda maaragtay tan jaamacadda iyo tan madrasada in laga sheekeeyaa xalaala tii nabi maxamed siiradiisa ku saabsaneedna waa xaraam wax la dhagaysta ma dhamo runtii waxaan markaan qiimayn sameeyo waxaan dhihi lahaa qofka ka hadlaya nabi maxamed ka hadalkiisa iyo taariikhdiisa iyo siiradiisa dadka barideeda qofka inkirsane ma dhamaba qofkaasi in lala niqaasho ma dhamo qofkaasi waa qof dhinta wey si macnawiyana iyo si maaragtay moral ah qof u dhintay wey nafta unbaa joogta mooyaane xayaatadiisu xayaato macno ku fadhida maahan sidaa laajligeed qofka in lala niqaasho horta maaragtay qof mudan maahan waa qof in maaragtay la badbaadiyo u baahan waayo maaragtay qof haagaan ka dhacay wey marka waxaan leeyahay walaalayaalow dhammaantayada aan noqono labadaa qaanadood aan galno qaanada dadka dhaqaalahooda ku bixinaya xikmadooda ku bixinaya oo dadka baraya oo maaragtay ku tirtirsiinaya oo nabiga haddaan nabiga lagaaga sheekayn oo saasuu salaada u duka jira aan lagu dhihin salaada siduu duka leedseed ku baranaysaa sheeg haddaan saasuu u xaji jira khuduu cannii manaasikakum buu yidhi xajkii sidii loo xaji lahaa aniga iga qaatuu yidhi haddaan lagaaga sheekayn xaggaad ka arkaysaa salaaddii wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuuni usalli saad aniga igu aragteen u dukada waa in lagaaga sheekeeya marka hore nabiga saana u duka jiray saasay salaadiisu aali jirtay waqtigaasuu kici jira waa markii lagu yiraa unbaad aad sixi kartaa laakiin yaan laga hadlin macnaheed waa maxay yaan diinta islaamka hala dabar gooyo way
arrintaasi mana dhagaysanayno ilaahayna subxaanahu wa tacaala waan ka magangelaynaa taladeeduna waxay tahay warka inta la wada dhagaysto inta fiican ha laga qaato inta xun ha la iska daadiyo wasalaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum assalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu aad iyo aad ayuu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa cilmi badanaha weyn ee sheekh muuse macalin xasan caynte oo ah sheekh weyn oo markaas mudaris ah in badanna dadka diinta ilaahay barayay aad iyo aad umahadsantaha sheekh muuse jazaaka allahu khayr idinkaa mudan ma ahi sheekh weyn laakiin waxaan ahay ruux maarata u diyaarsan inuu maarata diinta islaamka intuu ka garanayo inuu sheego oo aanu ka gamban marka adinkana aad umahadsantihiin tawaaducii lagu yaqaanay dadka caarifiinta ay wanaagsanaa aad iyo aad umahadsantaha sheekh muuse aad umahadsantaha ku mahadcelina